bismillahi raxmaani raxiim daawadaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo noogu magac darnay dhabka hadal waxaynu doonaynaa inaan kaga hadalno arrimo fara badan oo insha allah noqon doono taxane balse maanta waxaan kusoo qaadan doonaa qodob oo noogu magac darnay arrimaha bulshada waxaynu ku faaqidi doonaa doorashadii dhowaan ka qabsoontay wadankan aynu ku noolnahay ee UK waxaana doonaynaa bal inaynu in badan hoga tusaaleyno ama aynu ka hadalno sidee wax u dhaceen waxaa barnaamijka idin daadahin doona anigoo ah Faysal Cabdullaahi Abrone waxaana ii marti ah oo maanta halkan nala jooga khabiir sare oo ku taqalusay arrimaha caalamka magaciisa la yiraahdo Aadan Jaamac Kaahin Aadan waxa kale uu yahay xildhibaan kamid ah xildhibaanada magaalada Milton Keynes ee gobolka Buckinghamshire ee wadanka UK Aadan ku soo dhawo barnaamijka dhabka hadal inta dalka gudubno aadan anagoo og in dhawaan ay ka qabsoontay afti aad u ballaaran wadankan UK ayaa waxaan doonaynaa bal inaanu yar dul taagno taariikhda yar kooban ee siyaasadeed ee ka dhaxaysa qoomiyadaha wadankan UK la isku yiraahdo dadkan ku midoobay iyo sidee wax u dhaceen iyo qaabkay wax u jiraan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka waxaan doonayaa inaad ku soo dhawaatid adigoo maaragtay nooga bilaabi doona goorta ay midoobeen qoomiyadaha la isku yiraahdo Great Britain. Okay, haddii aan marka kusoo noqdo Great Britain ama dalka loo yaqaano UK guud ahaanba waa jasiirad badda ay ku wareegsan tahay oo gaar ah oo ka yar baxsan dhinaca Yurubta. waxaa kale oo yar jirta jasiirad yar oo saaran oo loo yaqaano Ireland laakiin marka guud ahaan laga hadlayo waa afar qowmiyadood isku tagay oo dowlad kale samaystay. afarta qowmiyadood waxaa kale yihiin qowmiyadda loo yaqaano Ingiriiska oo Soomaalidu taqaano Ingiriis laakiin waa England baa la dhahdaa iyo qowmiyadda kale loo yaqaano Scotland iyo Waleska qolo loo yaqaano iyada caasimadeedu tahay Cardiff iyo Scotland oo caasimadeedu tahay Edinburgh iyo qolada loo yaqaano waqooyiga Ireland markasta maqashaan oo caasimadeedu tahay Belfast. marka afarta qaybood la isku daro ayaa loo yaqaanaa UK iyo waliba jasiirad yar oo loo yaqaano Cheshire oo ku taala geeska waxaa soo marka isku daro afarta ilaa shanta qaybood isku daro ayaa loo yaqaanaa UK. haddaba marka ka hadlayno qowmiyad wax dadka aan isku afka ahayn oo kala dhaqanka duwan leh baa qowmiyad loo yaqaanaa. marka Scotland afka la yiraahdo ku hadashaa dhaqan ka duwan dhaqankana way leeyihiin sidaan sheegayna caasimadoodana waa Edinburgh magaalada ugu weynna waa Glasgow. qoladan kale ee Waleska laftooda ku hadlaan af loo yaqaano Welsh bay ku hadlaan oo af gaar ay leeyihiin caasimadoodana waxaa la yiraahdaa Cardiff waa maqasheen. qoladan kale ee loo yaqaano iyaga laftooda Ireland waqooyiga Ireland waxay isku jiraan laba qolo oo kala ah Catholic iyo Protestant oo mar walba uu jiro dagaal ka dhaxeeya. waxaad in badan maqasheen in Ireland uu jiro xilal fitan dagaalan oo dhexdooda xilfiga dagaalan ee jira dhexdoodaasi waxa weeyaan markaasi waa qolo Ireland Republic waddanka loo yaqaano dowladda Ireland ama maqasheen Dublin ay madaxda u tahay doonayaan raacaan iyo qaar kale oo Ingiriiska doonayaan raacaan. marka labada qowmiyadood isku jirta waxaa meesha dad badan hirdi ka jiro Belfast inkastoo dhexdhexaadii walka ay assembly gaar leeyihiin kuwan caasimadda waa Belfast. marka haddaan soo koobo afarta qowmiyad boorta isku jira Ingiriiska oo waxaa loo yaqaano UK ama Great Britain. waa sax waa arrin aad iyo aad muhiim ah marka waxaynu doonaynaa in aynu ummadda Soomaaliyeed u iftiimino maxay sabab u ahaa in ay midoobaan qoomiyadaha iyaga ah maxay tahay waxa buddiga u ahaa inay midoobaan iyagoo kala af ah oo kala dhaqana oo ay intaba ka talin jireen boqortooyooyin hore soo jiray ama boqorro gooni ah ay lahaayeen maxaa buddigu ahaa maxaa sababay in ay ku midoobaan magaca maanta ay wada haystaan. horta waxa weeyaan badanaaba qoomiyadaha kala gaarkii mar walba khilaaf baa ka dhaxan jiray waqtiyadii hore qarniyadii hore ee 15aad ama 14aad oo kale dagaalada sokeeya ka dhaxay jiray qolo kala dagaalan jirtay waa la isdili jiray marka in badan la isdilayay ayaa haddana marka qolada ay istilaan ayaa haddana qolo kale oo Yurub soo duulisay ama Roomaana ka timaado meel ka timaadee oo dhabarka garaacaysi. marka in badan isdileen dadkii marka waxay arkeen in cadowga dibadina uu jiro istilkeen fara badan isdilayaan aan waxba faa'iido u jirin. sidaas keentay markaas inay barka dib isfahmaan oo yiraahdaan wargaareen sidan soconaysay cadow kale leenahay nabiyana isdilina andeeshin taas marka keentay guddiga waxay markaa inay ku heshiiyaan arkaas. kolka ay heshiinayaan ma jiraan waxyaabo marka ay ku wada heshiiyaan oo sida xagga dhaqaalaha oo kala saami qaybsiga dhaqaalaha siyaasadda baahwadaag ama dawlad midooba ay wada yeeshaan
iyo wax cad oo mayu jira ay ku heshiiyeen markaa iyada ها هو جرا oo de qolada ku soo biiraysa ba constitution iyo system iyo nidaam gaar leedahay imka tusaale ahaan haddaad eegto Ireland de waxa leedahay waxa loo yaqaano first minister qoladan kale ama minister koowaad waxa loo yaqaano qoladan kale loo yaqaano Scotland ama Wales ay waxa leeyahay first minister bilii aniga waxa weeye nin yani madax ka qaybtaas marka jooga waaya gobolkaas madaxkii waxa loo yaqaan first minister iyo laftooda markaad eegto haddana waxay leeyihiin imika qoladan loo yaqaano Cardiff waxa la assembly bilii ilaa 17 qof meelaas oo adiga baarlamaan kala waaya Scotland ilaa 190 ay leeyihiin baarlamaan gaar ah oo loo sameeyay 1900 iyo maxaa la 1900 iyo halmalaya 1900 waaya leeyihiin qoladan kale waxa la assembly marka qolada gaar maamul hoose ay leedahay wasoo kumaan laakiin markay soo galayeen saasigiisu isku soo biiriyeen constitution iyo qoraale kala qorteen oo wax yaalla marka ay qolada isku tageliso waaya waxa sababta marka loo galaado ingiriiska waa sax qolada ay maamul hoose yeelato laakiin ay ka midaysan yihiin macnaha waxa loo yaqaan lacagaha waaya iyo مثلا tuqaahan wasaaradda arrimaha dibadda iyo difaaca waa sax inta kale qolada ay maamulkeeda gaar ah tahay waaya haddaan intaa taa kaga gudubno waxaa jira in midowgii ay midoobeen qowmiyadahaasi muddo imika laga joogo ilaa 300 oo sano ah waxaynu oran karaynaa magaca Great Britain waxaa daafaha dunida wadamo badan oo ay gumaysteen ayaa jiro iyagoo magaca huwan inkastoo dadku inta badan ay yaqaanaan dadka Ingiriiskuna ay yaqaanaan tusaale ahaan wadankeennii oo kale qaybaha gumaystay meelaha qaarkood saraakiisha ugu weynaa waxay ahaayeen dad Welsh ah laakiin dadku English bay u yaqaaneen oo ama magaca British oo kale u yaqaaneen maxaa markaa inta badan la oran karayaa waa maxay xadaarada ay dadka dheeraayeen ay intaas oo wadan oo qaaradaha dunida 4-5 qaaradood ay u sahlay in ay gumaystaan ama ay siyaasadooda ka dhaadhiciyaan maxaad u malayn karaysaa waxyaabaha u sahlay horta hadaan midka ku soo noqdo waxa weeyaan kala waajisay in dadku Ingiriis kale yaqaanaan Ingiriisku waxa weeyaan haddii aan tira ahaan iyo ku noqono Scotland imka ay doorashada socoto ku soo qaadan doona barnaamijka waa 5 milyan oo qof Ingiriiskuna waa ilaa 6 konton meelahaas inta kala soo hadhayna waa Ireland iyo Wales marka horta markay dadku ay leeyihiin Ingiriiska leeyihiin waaya macnaha ka farbayn dadkii kale waaya luqadan ay lagu hadlay saafiga ah waa sax caalamka lagu gudbiyeen waxa iskala Ingiriiska badana leh waxay Welshkina luqad kale ku hadla waa sax qoladan kalena luqad kale ku hadlaan waaya Ingiriiska waxa leeyahay macnaha luqad Ingiriiska iyaga iskale waaya oo gudbiyay baaxadii iyo asmadina ay ku taala sax isla markaa tirahan nimanka ka badiyeen waaya marka waxa laga waa saasayto in wadankeena ay joogin Welsh ama Scotland joogin waa sax hadda qaar badan Ingiriis ah yaa meesha joogay oo badan ay garaftooda waa run taasoo sax waa keentay waxaana keentay in caalamku la qabsadaan markii ay horta midoobeen ay gudahoodii sax ay quwad yeesheen dhexdoodii oo khilaafaadkii iyo dagaaladii ka daayeen waaya baa keentay markaas in caalamka qabsadaan waa nin si burbursan oo dagaalamaya caalam gaari karo waa sida markay isu yimaadaan afarta qaybood isku biireen ay samaystaan Great Britain ama UK waaya oo ay isku biireen oo siyaasad ahaan dejiyeen sax bay dhaqaalaha dejiyeen oo ay kordhiyeen waxa loo yaqaano horumarka warshadaha sameeyeen caalamka markaas ku fideen taas keentay waaya haddii inta kaga gudubno run ahaantii buddigeena barnaamijka maanta waxaa doodiisu ay tahay dood aftidii laga qaaday dadka Scottishka loo yaqaano intaynu u gelin aftidii laga qaaday 18 bishan 9aad ee sanadkan hadda aan ku jirno waxaa jiray in mar hore loo ogolaaday in aftidan ay soo bilaabato siyaasadda waxaan oran karnaa bislaatay ama xadaarada ay ka dhaxleen dunida ay soo gumaysteen ayaa waxay u sahashay in ay si qunyar ay u wada hadlaan marka maxaad inooga sheegi kartaa ninkan wasiirka koowaad ah Scottishka sababaha uu ku bilaabo ama ahmiyadda ama cidda ku dhalisay in uu hawshani adag dhabarka u rito okay horta marka hore aan ku bilaabay Scotland waxa weeye caasimada waa Edinburgh saan sheegay magaalada weyn waa Glasgow laakiin Scotland xisbiga loo yaqaan SNP sax waxa bilaabmay 1934 wala bilaabay in wax xisbigaasi uu noqdo waxa loo yaqaan Scotland National Party sax inta uu jiray xisbiga cusub ma aha laakiin waxa moodaa xisbiga inuu dadgeliyay ninka loo yaqaan Alex Salmon hadda aan ku noqono oo dadka aan u sheegnayo sax wuxuu Alex Salmon yahay marka Alex Salmon waxa weeye waa nin Scottish ah oo isagu noo ah ninkii afraad ee waxa loo yaqaan first ministerka ama ministerkii
كواد. مسك كواد حكومة ونك أفراد وين واي أوكي علي سلمان كوني سيال بقولي أفريق كنتاكي أيو كل شيء من قالوا يقال إنه ويست كوستليان كنت الله اسكتلان واي أبي وحو أهانكري إذن كلو يقال نيفيجا وأنا وش كنت أسأل كريش وحنا يقال روبرت واي marka aniga Salman waxbarasho ahaan waxa markii hore uu dhameystay 1927 ilaa 23 dugsiga markuu iskuulada caadiga dhameeyay صح diblooma ka qaatay school business oo loo yaqaano Edinburgh College واي inta kadibna adigu 1927 wuxuu dhameystay 1927 wuxuu dhameystay jaamacadda loo yaqaano ku taala Scotland loo yaqaano East Anglia University صح oo uu ku dhameystay masterka ama shahaadada labaad loo yaqaano cilmiga economics-ka ama dhaqaalaha واي inta kadibna wuxuu ku shaqeeyay wasaaradda beeraha ee muddo ka shaqeeyay laba sano kadibna wuxuu kusoo wareegay bangiga Scotland Bank oo muddo badan ilaa 10 sano ka shaqeynayay واي horta ninku markaa waa nin codkar ah oo siyaasi ah oo maaragtay aad iyo aad arrimahaas u wanaagsan واي isla markaasna weliba markuu ku shaqeyn jiray bangigeena dhinaca saliidda aad ugu maaragtay oo ahaa nin aad xagga saliidda ugu takhasusay oo صح aad u baalbaal خيراتك خيرات سليدة aad ugu واي soo واي marka horta Alman Salman halkaas uu ahaa haddii aan ku noqdo familigiisana isaga wuxuu qabaa gabar loo yaqaano Moran oo ka weyn 17 sanadood ده أهم بتطيط مصر متكونة واي waliba dumarka Scotland waxay isaga ku yar dhaliyaan oo foodkii badankooda nooga u badnaa xagga mayda u badnaayeen واي inuu adag yahay oo dumarka oo aanu jeclayn dumarka inay shaqeeyaan xaaskiisu waa xaas marwada guri fadhida واي oo aan shaqeynin إنه دمر يرغن شيري dumarka yar qajiri dumarka hoos u dhigo واي ay dadku bis ku tuumaan واي tifiyadu waraysiyo badan qaadeenna badan arrimaha haysta guriga iyo ma jecla inuu arrimahaas كهذا واي ka hadlo صح waxa isaga ku xiyeen u ah gabar loo yaqaan Nicholas صح oo iyadoo 44 jir ah kana baxay jaacad ku taqaana ku taala Glasgow u baratay cilmiga loo yaqaano looyarka ama sharciga baratay وارن gabadhaas markaa ku xiyeenka iyadoo lafteedu waxaana bilowday saastay 60 jir ah markii Mrs Thatcher ay bilowday warshadaha in lagu wareejiyo dadka maalqabeenka ah صح saas markaa kulli reerkiisa lafteeda inay taas gasho taas waa markaa waxagii ku kaxaynta ana bankanka وارن haddii aynu markaa usoo ruqaansano ama aynu usoo gudagalno qaabkii codaynta ugu dhacday intayna codaynta dhicin ka hor wadankani waxaad moodaa isbedel weyn baa ku dhacay run ahaantii madaxdii wadanka sida David Cameron Nick Clegg oo ku-xigeenkiisa ah Ed Miliband oo hogaamiyaha Labourka oo adiga aad ka tirsan tahay rag badan Darlington iyo rag badan oo kale Gordon Brown ra'iisul wasaarihii hore wadanka waxay isugu tageen Scotland iyagoo sameynayo campaign ama abaabul bulsho inay ka hadlaan ahmiyadda ay leedahay midnimadu maalmahaasi waxay u ahayd wadanka Ingiriiska maalmo madow run ahaantii sidee loo dareemay ama xisbiga adigu aad ku jirto oo kale looga dareemay magaalada joogto Milton Keynes iyo daafaha wadanka Ingiriiska sideese markaa loo filayay inay wax u dhici doonaan horta tan iyo ku noqdo oo aan taariikhaha iftiimiyo صح waxa weeyaan 40 mudane ayaa ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska واي 40 mudane baarlamaanka Ingiriiska ka tirsan Scottishka ah asagoo Scottishka yihiin badankoodu walkiiba 95 waa dad ka tirsan xisbiga loo yaqaano xisbiga shaqaalaha xisbiga Labourka واي xisbiga Labourka loo taqaano dad badan dadka ama laga tiriyay badan yahay ama dad badan baa isku tagay واي markii ay 5 milyan ay saboor gareeyeen macnaha xisbiga shaqaalaha badankoodu وارن ay markaa xisbiga ugu abaal guday 1997 in loo ogolaado Scotland inay yeelato baarlamaan gaar ah واي isla markaana ay yeelato maamul hoosaad dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada xawa noocaas واي baarlamaankaasi ka kooban markaa 129 qof واي haddaba ninkan Alex Salman nimankaan ka sheekeynay xisbiga SNP ku jira ها haqa Charles Buchanan markaa واي markii baarlamaankii gaar noqday ها ayuu markaa power ku helay khas واي dadkii ku hanuuniyo صح inay macnaha dadkii ay goosasho iyo ay ku fikireen واي marka waxa lagu markaa waxa ay goostaan dadku baarlamaanka ay ku goostaan baabaarta dee lagu maartay ayay baadee ay noqonaysaa laba sano ka horna waxa David Cameron ka hadleen واي in dadka abti loo qaado haddii abtida loo qaadana waxa ay goostaan loo qaado horsaas ku tii markaa doorashada imika la qabanayay warn oo marxaladaasi soo martay واي haddaba mucjisada meesha taala waxa weeyaan la isma lahayn markii hore saas artul ay markii hore واي
laakiin markii dee uu campaignki kulaaday oo dadkii dee la arkay ha ayaa waxay moodaa dowladda ingiriiska inay markaa ay magabageediba ay warun ruxantay waa sax oo dadkii yidhahdeen baqdin baa soo baxay aad iyo aad waya marka baqdinta xoog leh marka diminteedaasi ha waxaa ka qayb qaatay ninka loo yaqaano Darlington waa taqaanaa waa sax waxa weeye waxaan jiray chancellor ama wasiir maaliyihii hore ee dowladdii Tony Blair waya waa ninka allaha xoog leh get together yaasan ama better together ama better together yes midnimada ku jirta macnaha wada jirka habboon sax ninka haldabaankii oo ahaa haldhiga u ahaa warun ninkaas hogaaminayay waya waxaa kaloo dhinaca kale caawinayay oo isaga ka galay dhinaca kale warun golden power صح golden brown oo marna prime minister ka jiray wadankan warun xisbiga Labour Party ka tirsan waya isla markaana ahaan jiray chancellorkii Tony Blair aadna dhaqaalaha u bartay labadaba dhaqaalaha bartay runtii waa sax labadaana waxaa sii raacay weliba ninkii kale isna ahaa ninkii kale isna maalin isna xisbiga loo yaqaano respect madaxa ka ah ee Galloway George Galloway isna Scotland warun saddexda markaa wax xoog saaray markaas in dadkooda ku noqdaan oo ay kala dhaciyaan inay qiimaha midnimada leedahay haddaba waxaad ka dareemaysaa xadaarad meesha ay joogto sax dadkii Scotland wax ogolaaday markaasi waya in ninkii meesha imanaya Scotland kala go-eeda iyo kii diidanba warun uu si dimuqraadiyada xor ah u hadli karo waa sax nin walba odhan kara anu ma doonayo waxaad wadaan waan kasoo horjeedaa midnimada rabaan oo aan la caburo qofkii oo aan la qabsan oo aan la xirin warun oo aan qofkii marka lagu shaabadin sax kii kale diidanna uu hadlayo mid walbana doodiisa ay u furan tahay waya xataa waxaa timi marka dambe prime ministerka Cameron maa tigi meesha waya idin support taagin nin walba la soo dhaweynayay waa sidaa taas aqbalaatay waqdoodu runtii marka Darlington waxba uu ka guuleystay alagas waxa la odhan karaa waxa weeyaan waa dhinaca dhaqaalaha sax haddii arrintan yar dhexgalo waan hoos yar eego waya arrinka wax loo qiimin karaa saddex qaybood ko waa sidee u arkaan goosashada ay goosanaysay international community ko ama dowladaha caalamka sidee u arkaan waya waa meel ku jirta meesha sax dhaqaalaha ingiriiska sidee u saameynaysaa labada qaybood horta iyaga waxay ku noqdeen laf gashay dhun gashay ku noqotay warun Salman sax haddii aan international community sidee u arkeen eego marka waxa weeyaan waad maqlayseen oo qaarkood baa waa dhageysteen in madaxweynaha Mareykanka maxaa Obama uu toos u bareeray oo ku yiri Scotland ha ka noqoto sidaas oo midnimada u fiican ha ku halkeeda ku adkaysto waya oo Salman ninka u doodaya in goosashada doonayay Salman waxba ma soo sido ka xanaaqay waya oo ku yiraahdo Franklin waxa soo xigay week kadib hadana in prime ministerka dalka Australia warun oo sidii salaysan taageeray UK wada jirkeeda waya ku soo jeesto goosashada Ireland waya waxa kale taageertay dowladda Canada waya oo la example ku bixisay gobolka loo yaqaan Quebec waa sidaa oo dhowr jeer isku dayay waxba soo toogi weydii inay midnimada ku jirto wada jirka saddexdaasi qoloba waxa xoog saaran international community ahaan inaanay marka waxa kale xagga marka international community la pressure waliba kaga yimid European Unionka waayo marka sida wax ku doodo marba isugu lahaa anigu haddii aan goosto poundka ma European Union galiya iyo ma qaadanaya hadda future dambe taa dhaqaalaha waan u soo noqon doonaa haye taa dhaqaalaha waan u soo noqon doonaa waxaynu ku jirnaa yacni hurda la'aantii ku dhacday waddankan Ingiriiska asbuuca ay doorashada socotay ama codeynta ay socotay ama aanu niraanaba maalintii 18 bishii 9aad waxaa jaraa'idada waddankani aad uga faalloonayeen xaaladaha taagan waxaa ka mid ah boqoradda inay jiifki diiday wiilka dhaxal sugaha sidoo kale asaga inuu jiifki joogi diiday siyaasiyiin badan oo saad sheegaysa iminka caalamka ka mid ah inay sidoo kale dad badan waxay saadaaliyaan magacii Great Britain oo caalamka ama dayaxa ka soo cabayba inay maartay maanta xilligii soo gabagaboobayso waxaan ognahay dowladda Ingiriiska ama Great Britain inay caalam wadamo badan oo dunida ka mid ah boqolaal kor u dhaafaya ay gumeysteen waxay caan ku ahaayeen inay bulshada yacni kala qaybiyaan intaysan gumaysanin waxaa dad badan markaa ay yiraahdeen waxaa laga yaabaa nafsigii inuu maanta ka soo baxay Great Britain wax badan bay ku naaloodeen dad kala qaybsan inay maamulaan maanta iyagii bay ka taagan tahay arrintaasi lafteeda dad badan oo siyaasiyiin ayaa falanqeeyo ama Soomaali ama caalamka lagu dhashay maalmahaasi markaa haddaan dib ugu noqono waad saad sheegtay xanuunka ay lahayd ama ay dowladda maamulkeeda ama nidaamkeeda u lahayd ama mustaqbalka dadka waddanka ku nool ay u lahayd sidee markaa adigu xisbi ahaan adiga maadaama xisbiga Labour ka tirsan tahay sidee idinku u dareemayseen arrinta iyada ah xanuunka ay ku hayso bulshada ku dhaqan UK horta xisbiga Labour Party ka tirsanahay waliba waxaan ka shirnay anagu shir waxaan yeelanay 2 casho ka hor intaan abtay la qaadan ka hor waya guddiga fulinta
horaan ku jiro walaa 10 qof ka tirsan صح iyo waliba laba qof oo sharxan baarlamaan ka noqdaan oo shir gaar ah arrinta ka yeelanay واي kulligood ka wanaagsan arrinta noocaas qof walba wax ku doodayay in midnimadu ay fiican tahay oo kala go'o dhibaato keenayo واي haddaan marka xisbiga Labour Party ama xisbiga shaqaalaha ka baxo واي waad garanaysaa xanuunka leedahay midnimadu واي حتى إن كاميرون iyo xisbiga shaqaalaha EDB waa isku wanaagsan yahay صح in midnimada daadeed ay shir u qaateen واي wala wixii khilaafaadna ay loonayeen صح أنا saddexdii ma qabano iyo kii ka haysta liberal dimuqraadiga وسيدا saddexdii xisbiga wadda ugu weynba واي inuu khilaafaadka ka qaadayna واي aan israacno inuu midaysan صح aan marka u tagno واي qof walba markaa uu sheegay in midnimada aan qiimo leedahay ها وصح xisbiga qabsadaan u taageerayo macnaha qolada noo tirada وار ama ay tirada صح taasina markaa ku noqotay barasha kale واي xaggii aan qoladan kale صح xagga asaas saddex kale وارن haddii aan ku noqdo dhinaca difaaca صح dee ingiriis waa taqaanaayo waxay xataa haddii xagga siyaasadda ku noqdo oo intaan difaaca gelin ka hor waxa ay BBC xataa wareystay ninka loo yaqaano John Major واي oo isagu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska وسيدا xisbiga Conservative Party واي waxaa uu ka hadlaa ka mid ahaa wuxuu yidhi haddii ay isku talaan goosato waxaad la mid noqonaynaa buu yidhi daciif jabay واي ama dowlad aan power lahayn واي imika powerkeyga marka Yurub ay shirayso waa la qadariyaa buu وارن waxaa dhacaysa buu yidhi powerkiina si hore noqonayno uu jircaayo وارن US الى بد با مقنع واي France iyo waliba Germany dowladaha aan barbar taagnahay وسيدا hoos ugu dhacayna واي sidoo kaleeto wuxuu yidhi haddii xitaa UN markaan ka hadlaynay xitaa aan isla hadal وارن powerkii ama taxgelintii hore la siinayay كلهن la siin maayo واي marka uu ka hadla arrinta noocaas wuxuu yidhi wax walba isku talan dadka Ingiriiska waxaa la qabtaa وارن dhaqaalahoodana waa la kabaa wax dhib oo haystaa ma jirto واي waxaanu ka jeclaan lahaa in ay midnimada ay maartay صح ay maartay ay taageeraan وارن waxaa kaloo Ingiriisku ay waliba sida ay isku talaan wax u tusaan ay shiriyeen oo ay u yeedheen saraakiisha ku sareysa ciidamada militariga iyo kuwa nabad ku sugidaba واي iyo raggii hore retirement kaan jiray واي intiiba صح ilaa 8 nin oo sarkaal ku soo qoran jiray Timeska oo ay horeysanayeen وارن nin walba wuxuu yidhi haddii quwaddaasi ay ka baxdo Scotland واي hadda powerkii hore yeelan mayno صح waka hadda example ku qaadan kartaa berigii hore dee Soomaaliya sidaan jirtay power ku lahayd وسيدا iyo markii kala burburtay si Itoobiya u soo baxday power ku yeelato وسيدا mar hadduu waddanku burburo oo kala jajabo oo iskhilaafo وارن power yeelan maayo وسيدا وأرن أدي مهم وأرن عنتي أرتاد كذا واجسي هدي مركا إن دب وقولنا قلنا سيدا وحود عين لبضي قلا إسكسو هرجدي قلا وكوا لبحي no thanks بلبحين هو نمك ديدنا إن لك لجوا من نمذا وقلا قلنا وكوا يس لبحي ديك اللي هذا دانلتون وحو سميه هالكودج اللي هذا bet together أو سومالي هنا دانو معنا نقول وذا جركا حبون ama wadajirka ay dantu ku jirtaa waa barnaamij ninkaasi run ahaantii waxa lagu tilmaamay inuu ahaa haliyey mar uu hogaamiyaha xisbiga Labourka wadaad ka tirsan tahay uu ka hadlay Ed Miliband wuxuu ku sheegay inuu yahay nin aad haliyey oo Darlington hawl badan la geliyay in no thanks qolada wadata aysan guuleysanin ninkaasi maxaad u malayn karaysaa ama maxaa u sahlay ma xagga aqoonta ayaa u sahashay ma waxa u sahashay xadaarad gooni uu leeyahay inuu arintaasi ka miro dhaliyo ama uu yeeshaba qofka uu noqdo qofka koowaad ee loogu mahad celiyo hawshaasi maxaad u malayn karaysaa ee ninkaasi qaatay better together hawsha uu galay waxa u sahlay waxa soo qaadan kara saddex xaalaba weeye mid weyn oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha oo ah xisbiga u badan ee ay taageeraan dadka isku tasho weeye halka kalsooni gaar ah ka qaban ko waxa leeyahay xisbiga anagu aan taageersanayn ayuu hogaamiyay waa ko weeye laba ninka waa nin dhaqaaliyahan oo dhaqaalaha bartay isla markaana gaaray jigada ah chancellor waa sax ama wasiir maaliyadka aan jiray wadankan weeye oo financialka ama dhaqaalaha aad u yaqaana ko laba saddex waa nin asalkiisu yahay Scotland isla markaana ku dhaqmay Ingiriiska weeye labadii dhaqan ba garanaya sax oo labadii dhaqan buu waan garanayna miisaami karayo waxa jira aan ahayn mid dhaqan kaliya ku qafriyahay labadii group waa isku miisaamaya weeye sidaan hadalka markaa ku soo qaaday waxba ku adkaaday wax kamid ahaa poundka ayuu weydiiyey sax waxaan la soconaa iminka dad dhaqaale ahaan aan ku noqono ingiriiska maanta waa fast growing economy in Europe oo Soomaaliya marka laga hadlayo ah wadanka dhaqaalihiisu sida xawliga u soconayo weeye waxaa iminka la sheegay inuu durba dhaqaalihiisii marka hore wuxuu ku dhacay hoosaan buu dhacay marka hore ma sumariye weeye laakiin iminka durba inuu boqolkiiba 3 sax kor u kacay waa run ayaa la sheegay isla markaana uu noqon doono dhaqaalaha iminka ugu xoog badan ee Yurub leedahay waa run
سؤال شو ويدي مركز أليكس كارلتون أكمل هاي ورأدو وادي يروي ما كبيرة كو يروي قالوا هوس فوداي أما هوس بوش السعودة ويا قولنا الإنجليز كان قالوا وكاس هذا كان كاميرا بوند كيف على كاميرا ونكسن وقويسن ويا هدي أدوستر بوند كمان اللي أدوسين مايو ويا سيد قالوا ما رأيك الخلاص ويا سؤالي ويدي كم ذاك وصح كدبوا هذا صباح ذبا إذا بريش كسرية ضد ورقات كذي صح إن مركي أدرسوا دلوقتي بنك الله يقال سكوتلاند بنك أو سكوتش كليهم ويا ولا هذا هاد كواتر أوفيس كي واحد وريش لي لندن هدي أديس أدبي وترادن ها سبتعود أنت أنا وعيني أو لقاني غصب دايا ويا بنكي كان الله يقال لوريس وحوليسنا وحق قبل لندن ويا إلى بقول صدق يعني شركات أو سكوتلاند ديجن أو سكوتش كوتش إنجليزنا حنا لندن ولا منا لندن محيط هذا لندن وحوي وسنتر كفينانس كسنتر كدخلاء عالمك ويا وحنا سهلي وحويان إنجليزك وحا آدي أول شقيان مريخ ودولة قارضة ويا مريخ دولة عالمك ومارتي ودوني المال قليلة مش كبر بالكم وين ولا قناة هالسكولوين ويا ساسا مركب شاشي مركب إنه قارب بدن كويالو وكمبرية بدن أي ماشي مادان ودخلني سنة نقضو صح ودن كسنتر كعالمك على ما بقول وير مركب تاسا مركب شاشي مركب أيوة تودو إنه كويس سنة بقان ساسا مركب دوديسي وحوجسي نك على دالتون صح إنه كويالو بدكينا قناعسي ويدي دقالي بعد عين كاسي حاجة والله ورن هذا dhinaca kale iska taagno Solomon laftiisa wuxuu ku doodayay Scotland inay leedahay dhaqaale ku filan ama kheyraad ku filan tusaale ahaan saliida oo kale taasi maxay tahay iyadu waa maxay saliida uu ka hadlayo ama kheyraadka Scotland ku filan sidee u arki karayaan ama ummadda Soomaaliyeed hadaad u bayaamiso muxuu yahay kheyraadkaasi oo ka hadlayo ninka asaga ah يعني doodiisa ay ahayd in ay ka go'aan yani waddanka Ingiriiska horta waddanka Ingiriiska dhaqaalihiisu waa balaayin weyn wax soo koobi kara ma waya laakiin marka laga hadlayo sanadkan ku jira 2014 kama 2014 waxa la qiyaasay dhaqaalaha laga helay saliidda isku jirkeeda waa 3.7 bilyan weyn warun kan dhaqaalaha ka badan Ingiriisku intaas ka badan helaan oo arkaysa warun loo eego waya wax kale la sheegay in muddo 3 sanadood ilaa 4 sanadood uu jiri doono saliidaasi la soo saari doono 4 sanadood oo iman soo socota way intaana ay noqonayso dhaqaale ahaan inta laga helayaa ilaa 4 bilyan oo maartay oo lacagtan adaga Ingiriiska anaga waxa markaa noqonaysaa in marba sii yaraanayo soo saarkii ama dhaqaalihii sii yaraanayo way halkaa ka tusaalaysa markaas sax horta inaanu ahayn saliidii mid isku sii koobi karo oo la isku hadlayn karo aan ahayn way soo garan sax waliba waxaa ku darsataayo baarlamaan qolada ninka Scotlandku maamul hoosaad free xore haystaan waya oo iminka caafimaadka iyo maamusha waxbarashada jaacadaha halkan marka laga qaaday $1,000 iyagu waa free waa sida oo jaacadooda wax lagu qaataa haddii lacag laga maqdo bilaash warun caafimaadkooda waxbarasho tayana la tahay weliba warun caafimaadka xor buu yihiin jaacadaha fanka badan la siiyana ingiriiska ka hoosiya oo lacag badan siiyo ku caawiya marka ay laftoodu dee xaggii waxbarashadii xaggii caafimaadkii intaba waxaad moodaa inay dee xor ay yihiin oo ay maamulanayaan laakiin se ay ka dhigtay uun saliidan maarata aan qaadano oo saliid aan qaadano weliba markaad saliidda ay qaataanna dee baawarka ka lumayo waxa weye nuclear bomb haystaan waddan quwadaysan oo caalamka la tahriir noqonaya marka Scotland laga saaro Ingiriiska hataa dhinaca gaar loo saaro si noqonaya markaa wayigu waxaa noqonaya waddan yar oo lamida wadamada Denmark lamida haba yaraatee aan baawar lahayn anagasna wax ku dooda isagu nuclear bomb anagu mudoonin kuwi kuwana soo qaaday nuclear bomb iyaguna markaa ay qoodin qubur duriyada ma waddan xataa waddanka noqon maayo isla markaana saliiddeena dee waqti wax aan waqti dhamaanaysa baankii iyo dhaqaalahan ay haystaan kuwana la siin maayo waddankii muddada muddo badan ba wuxuu noqonaya waddan dhaqaalihiisa uu hoos sii dhacayo shirkado badan meesha fadhiyaan way kasoo dhaaqayan ka imanaya marka wuxuu noqonaya waddankii meesha odhanaysa meel dee aan sugnayn waa sax haddaynu markaa kusoo noqono 18 bishii 9aad oo ah maalintii aftida ama codka la tiriyey waanu sheegnay waddanka qaaqul badan ama dhibaatooyin badan ama waxyaabo badan baa la filayay laakiin waxaa dhacday sidii wax loo filayay oo maysan dhicin dadkii doonayay in ay kasii mid noqdaan qowmiyadaha midoobay Great Britain la isku yiraahdo waxay noqdeen markii aftida la tiriyay 5% iyagaana ku guuleystay halka qolada kale ee ka soo horjeeday doonaysay inay goostaanna ee 45% noqdeen taasi markii laga yimaado waxaa jiro
يعني hambalyo fara badan oo maalmo dhan socotay oo madaxda wadanka sida Cameron Ed Miliband ilaa boqorada ka hadashay raggaasi Dalton aad sheegaysid aad booga hadlay Salman laftiisa uu soo joogsaday wuxuu yiri waan hambalyeenayaa يعني in laga guuleystay waan hambalyeenayaa buu yiri waa ninkii dadaalka badan u galay inuu go'o marka sidee marka xaggaasi maxaad ka dareemi kartaa ama maxaad umada uga bandhigi kartaa biseelka noocaas ah in nin laga guuleystay oo dhaqaalinta la ku bixiyay oo habeen badan u soo jeeday oo ummad badan waliba doodaha TV-yada ka baxayay waxa aad uga soo qayb galay dhalinyar lagu qiyaasay da'da 17 16 oo kuwaas oo ah kuwa ugu badan yani Scotland dadka Scotland ku nool maxaad u malayn kartaa marka ninkaasi yani arintaasi uu soo bandhigay oo leeyahay markii laga guuleystay waan u hambalyeynaya waxaan ku faraxsanahay in maaragtay dadkaygii kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystayba ay dadkaygii yihiin kadibna uu sameeyay inuu is asilo marka biseelka inta leeg marka barbar dhigto Afrika oo kale ama de Soomaaliya oo kale marka barbar dhigto qof laga guuleystay xil laga guuleystay maxaad u malayn kartaa markaas barbar dhigta arintaas okay laba xaalad horta way markuu rasa warta Salman waa nin marka dhinaca kale eego dadaalay way waxa weeye badan Afrika ma qiraan qofka inkastoo siyaasad ahaan ay qorada ka soo horjeesteen laakiin Cameron iyo Ed Bilba qof walba qof walba uu qiray لكن من علوسيها ودي معناها سوكي هوشة وقبتي هذا وانتو جوالي مشينا فرت بقولك ما قاعدين ويا ونن أقول لي هاي وحول كرا إنك السؤال رأي هنك دوين سير ولا نسلو فكرة يعني كراسين لكن ونن معناها هذا روتي رص ويا مركز يسعى سلي ورطوا دقن يوروبيين كي مريك كليين ويا هذا نكو حسبي ومدحكي هاي وحسبي يدعوه لا يقول يستو waxa marka ay badanaaba ay u sameeyaan wax loo yaqaano iscasilaad waya oo iscasilaad jigadi oo ninkan u gudbinayo in markii dee la guuleystay Labour Party ama xisbi shaqaalaha dee Tony Blair ka baxay waxa soo galay marka Ed Miliband kii hore qoladii ka horeysay ee Conservative markii loo guuleystayna waxa soo galay markaas mar haddii xisbigaasi uu dhaco waa ninkii gudoomiyaha xisbiga ka ahaa inuu ka baxay meeshii uu nin cusub soo galo marka taasi haddaan kaa dhex galo ma badbaadin qaranka iyo dadka iyo xisbiga lagu badbaadinayaa مسوى بدبادين قفك وصاق شخصيا بدبادين أول ما حلبة ويا مرة قفك ما شرت شيء شرعية كو وسمعت فعك كتير ماشي ويا مرة ضدك وفريا معناها دنيا نسوى نيو فيس ويا وش اسمه ساسد ولا كو هوشان سوى هوشان سوى سعودي ويا تبى ممكن نعصبه كله أو نيو فيس وضدك اللي يجيب شو إنه اللي يجيب شو وارم إنه كم وطبعا بقى الليبر بارتيا بقى دور شرد عامة ولا كان توني بلير كاني هو كمان سوكي مركب إمبرايستي واصلة خبرنا نيو فيس كأبو قف عصور كينيا سأصدق عصور مريا تبدأ بقى مركب أو كيمي كذا لكن كان يقصون عضو على ماشي قف كينا كنا عقبة أي كعادتكم كعاجسان تكلموا جرتايو وحبر اليوم كان مركب جرات كأخذ أطفال كسر كم ده وبالسيلة ولأن أفريقيا قاعدين نيك الله يقال على السلمان وكيمي قبل الله يقال إنه أبدا الشاعر أبن الشيء يا صح ويا مش لويس دور قاسوين ويا معجزة اليابك على حوائي ضدك على كل قناة بقول كيبا الكوبي اللحدن بقول كيبا هذا الكوبي اللحدن كلهم وحين هذا أنه وحنا يونين ميدو كان يونين سو وارن أنت كره بقول كيبا سودان سودان وحنا هذا أنه وحنا يس اوكي تامرك بريش قارنو غديو كجراو صح magaalada laga soo shidon lahaa tikama soo bixi karayo dadkii wax bay raaceen bay United-ki waa sax halka ku sabisay oranaysa in dadkii magaalada waddanka la diganay sababtiisi aan fikirkan isoo qabaan ku raacsanay waa bisel waa sax oo yacni kalsoonidii asaga ku qabeen ama de aragtidooda ay u madax bannaan yihiin cid ay doonayeen inay doortaan waa run magaaladu kiimid oo badan dadku taageeraan waa sax in magaaladii ay u kiimid nidaam kale ay magaalada ay kasoo jeesatay وبقولك كل هذا الدعاية الإنجليزي والإنجليزي تصميم على قطب براشة كان نفسه إنه كون فكروا إنه أساسا دي بدرو أوكي هذين مركا أنت كسي قدمنا يدنا أو جبدي برنامج كأنه كتشرنا وحنا ملينا أنت سعد إنك كسوف على توح بدن أيانو كفهم كرينا داودياش يد قيمة يقدرين تمضنا وحن جعلنا هنا نلفهمان وجدويك أما كجدويك عن برنامج كوطة لقلني marka waxaanu u gudbaynaa qaybta dambe ee ah maxaynu ka baran karaynaa hadaynu nahay Soomaali ama ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan wixii ka dhacay
waddankan ingiriiska asbuuc ina weedaartay maxaynu ka baran karnaa hadday noqoto siyaasad hadday noqoto isu tanaasul hadday noqoto dadkii kala fakarka ahaa oo markay arkeen in midoogii dhibaato soo wajahday inay xal arrintoodii ama waxay isku hayeen ay inta gooni u dhigtaan ay raadiyaan xal ay ummaddan ku badbaadiyaan taasi markaa maxaynu ka faa'iidi karaynaa ama aynu ka baranay ayaad u malan kartaa adoo usoo bandhigayo daawadayaasha iyada okay anoo arkaasi ka hadlaya horta waxa weeye waxaan ka dhacay dalkan UK loo yaqaano iyo doorashada ka dhacday Scotland waxaa wanaagsan inay Soomaalida cad wax u bartaan waaya laba xaalaba dimuqraadiyadda waxay farayso dadka xaq xalaasha ah iyo midnimadu waxay tahay waaya dimuqraadiyadda waxay faraysaa in xataa magaalooyinka ama gobolada dadka joogaan ee aragtida kala duwan leh ay isaqbalaan oo ninkii kala raacsanayo ama fikirkaas raacsanayo kasoo horjeedaba labadiiba la isu keeno oo labadiiba ay dhibaad galayaan oo dadka kale fikirkaa ka duwan wata la ogaado waana odhan lama hadli karo anigu saasaan leenahay lagama hadli karo odhan gobollo badan Soomaaliya wax ka jira in nin intuu hadlo yidhahdo lama hadli karo taasi wax weeyaan ma soconayso dadka fikir ka duwanaa ayagu ay doonayeen waa in loo fasaxo oo miis keliya ay ka dhibaad galayaan oo qof walba yidhahdo sida Donald Trump wax ka tegey London ka tegey waa sax xagaas ka baangalay oo gobolada kale gobolada qaarkood leeyahay ma iman kartaan loo kale gobolka weyn yaadan oo kan begerayaan oo aragtida si xor ah cabran iyaga ogol oo waddanka u dhashayna aqbalsan taasoo ka mid dimuqraadiyadda farayso talabaad ee ku taala meesha wax weyn Soomaaliya loo baahay in la barto wax weyn Soomaalida Ingiriiska wuxuu qaybiyay qaybood oo kala ah South Somal iyo waqooyi Soomaaliya loo yaqaano iyo French Somaliland oo Djibouti la baxday Soomaali galbeed iyo NFD ashata qayb ninkii u qaybinay Ingiriisku ah waaya maanta markii ay qoladan ay tilmaan goosanayna Scotland abaad ka dhacay Ingiriiska iyo boqortooyada iyo dawladda warkiiseen nin walba midnimada ku jirta khayrku waa sida dadka Soomaaliya wax loo baahan yahay inay fahmaan inay soo ceshadaan midnimadooda iyo waalnimadu oo isfahmaan oo is ixtiraamaan oo tifraaruqa iyo kala go'a iyo kala carab haddaan halka ka dhax galo marka ma waxaad leedahay Ingiriiskii wax kala qaybinayay ayaa isagii wuxuu dareemay midnimada qiimaha ay leedahay waayahay kawskaas agaarkaas Ingiriiskii ku kala qaybiyay Soomaaliya kala qaybiyay baa maanta ka cabaadaya khilaafka iyo burburka iyo kala cararka iyo kala go'a marka dadka kale Soomaaliyeed maanta ku fikiraya inay kala fararuqaan ama kala socdaan ama ay iskhilaafaan ama kala cararaan waxaan u sheegayaa inay khayr ku jirto midnimadu example markii dadku isku dubnaanay Ethiopia la dagaalamay sanadkii waddan power la xoog loo ah maanta meesha tagay waa qof walba arkay haddaanu soo qaadana halkudhegii oo Darlington qaadanayay oo soo qaatay ahaa better together ama wadajirka habboon ummadda Soomaaliyeed sheegtay qiimee ku lahayd wadajirka maantana waxa weeye qurub ama xaafad bay u kala fadhiyaan waxaana laga yaabaa inay saan ka sii liidato mustaqbalka dhow marka haddii adigoo ka faa'iideysanaya barnaamijka qaybtiisa gabagabada haddii adigoo la hadlayo ummadda Soomaaliyeed inteeda waxgaradka ah dadku waxgarad ma wada aha inteeda waxgaradka ah ama inta hoggaanka waddanka u haysa ama gobolada sheeganayo inay deegaan gooniya noqonayaan ama ay noqdeenba inay sheeganayaan dadka ku dhaqan ee saada sheegaysid u dhashay waxaa jira dad goboladaasi u dhashay oo aaminsan in la soo iman karo oo wax ka bartay xadaarada ama adduunyada isee u nooshay wax ka bartay oo caalamka ku nool dadka ayaga laftooda adoo codkaaga gaarsiinayo meel walba ay dunidu ku nool yihiin maxaad laftooda ayaga maxaad u sheegi karaysaa waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaabay dowladii hore si bare ama militariga lagu diiday waxay ahayd hadlina waaya waxaan leeyahay dadka gobolada degan soo dhaweeyay dadka fikirka ka duwan wata waaya ee war fikirkan fikirka duwan baa lagu leeyahay oo aan la hor istaagin waaya wala oran oo laga dadka laga daayay juuq oranaya aamus waaya dadku waa inoo fasaxo fikirka xaq u leeyahay qofku haddana meesha dhibaato ugu geysanayaan asugu waa security dhibaato ugu geysanayeen oo ninka fikirka duwan meesha ku hormarnayo oo golo la isku tiro markiisa kii goosay doonayay kii mid labadiiba way ka bakareen qofka baa loo galo mid kale ku soo gabagabeynaya waxa weeye dowladda Ethiopia ee dariskeena inkastoo barnaamijka kulli baad ka hadli doonto صح laba jeer weligood heshiiyeen waaya marna waxay heshiiyeen 1884kii 1883kii bay heshiiyeen صح markaasoo ay dagaalamayeen macnaha xamaarada ay dagaalamayeen waa sax iyaga qowmiyado kala fadhiyay markaana waxaa la dhaxadiyay yuri ku dhaxadiyeen inay qolo dagaalanto muslimka jooga Suudaan muslimka Soomaaliya qaalo dagaalanto oo heshiiyeen wulfto khilaaf gudahoodana xabeen iska dhigaan markii labaadna ay heshiiyeen waxa 1992 markii Soomaaliya bartay kuwa qoys saashki oo xamaarada iyo Tigreega lagu heshiiyay
inay midoobaan oo soomaalida ay midoobaan soo wax la baahan yahay inay khilaafaad joojiso oo ay isu timaado ay isfahanto si ay quud yeelato okay haddii aan markaa taa mid yar kaa weydiiyo noo gabagabadii kusii dhadhow maxaad u malaynaysaa dadka diidan in dadka ka fakar duwan ama ka aragti duwan inay dood la furaan dood xalaal inay la furaan maxaad u malaynaysaa sababahay u diidan yihiin maxay cuskanayaan waxa weeye horta waa laba fikradood haye ninka isagu le anigu ma doonayo inaan ninkaa la hadlo waa nin Ethiopia doonaya hoos galo soo garmaysa waxaan leeyahay maamulada badankooda inay marba u cararaan Ethiopia oo lama waa run ninka kale la midnaan doonayana waa nin doonaya quwad inuu helo Soomaaliyeed oo iska caabiyo dalalka dariska mar walba quwadda wax ku jirta isu yimaanshada iyo quwadda dadka laakiin ninka tafaraaq doonaya waa nin maanta Ethiopia oo hoos tagay maanta garanayna Ethiopia maanta inay qusuud ka faratay meel walba oo gobolada Soomaaliya taasina ay keenay doonayso in gobolba ay hoos faado marka waxa uu sheegay dadku sheegaya in ay ku jirto quwaddu isu yimaanshada okay aad iyo aad buu mahadsan yahay mudane aadan jaamac kaahin barnaamijkeena inoo soo taxnaa tan iyo maaragtay in muddo ah waxaanu doonaynaa inaan halkaa kusoo afmirno barnaamijyo kale oo soo socdo waxaa jiro dhabka hadal hoos iman doona hadduu ilaa yidhaahdo waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno sooyaalka ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno arrimaha bulshada iyo dhaqanka waxaynu doonaynaa inaan ka hadalno kala fakar duwanaanshaha ayaa afkaaraha bulshada Soomaaliyeed oo qayb imika aynu soo qaadanay barnaamijkeenan oo aanu soo gunaanadi doono waxaan leeyahay aadan aad iyo aad baad mahadsan tahay okay